socdaal qaatay saacado badan kadib waxaan iminka ku suganahay deegaanka la yiraahdo Hadaafow waxaana socdaalkan hogaaminaya xildhibaan Cabdinuur Cali Aadan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya isla markaana halkan ay tahay deegaan doorashadiisa waxaan marnay deegaano badan oo ay ka mid tahay gobol yar yar deegaanka Xamareysa iyo kan iminka ku suganahay oo ah deegaanka Hadaafow waxaana runtii deegaanada aan soo marnay xildhibaanku ugu talagalay inuu booqdo isla markaana u kurgala xaalad ay ku sugan yihiin dadka halkan ku sugan deegaanada aan soo marnay dhamaan iyo midka iminka ku suganahay oo ah deegaanka Hadaafow waxa indhaheenu ay qabteen isla markaana ay ku sugan yihiin dadka halkan joogan ay u baahan yihiin goobaha waxbarasho sida iskoolaadka oo kale iyo waliba goobo caafimaad oo isbitaalada oo kale ah ma haystaan goobo caafimaad waxaana u soo dhow inay tagaan magaalada Kismaayo oo runtii u jirta dhowr iyo 10 kiiloomitir qaarkoodna u jirta dhowr iyo 20 kiiloomitir xildhibaanka oo dadka halkan jooga la hadlay waxa uu dawladda federaalka Soomaaliya hay'adaha gargaarka ee Soomaaliya taageeray waliba dowladgoboleedka Jubbaland oo dadkan hoos yimaadeen ugu baaqay in lala soo gaara waxyaabaha emergency ama degdeg ay ugu baahan oo ay ka mid tahay goob caafimaad sida isbitaal oo kale iyo waliba goobaha waxbarasho ee iskoolaadka ah waxaana intuu ku sugnaa uu halkan ka xarig jaray dugsi quraan oo loogu talagalay dadka deegaanka in wax lagu baro iyo si la mid ah galinka dambana ay wax ku bartaan dadka u baahan waxbarashada maadiga runtii marka laga soo tago xildhibaanka iyo dadka kale ee dawlad goboleedka Jubbaland oo dadkan mas'uulka ka ah wuxuu baaq u diray dadka ku sugan qurbaha ee jaaliyadaha iyagu dadkooda ay halkan ku sugan yihiin isla markaana dadka Soomaaliyeed inay soo taageeraan dadka iminka halkan ku sugan oo waxyaabaha ugu baahida badan yihiin ay ka mid tahay goobo caafimaad iyo kuwa waxbarasho intaas la eg caruurta horteeda dholan kuwa kale hadda xaq joogo kuwa kale aad arkayseen dhammaantood ma haysta goob waxbarasho dugsigaas quraanka ah oo maanta koow ay tahay oo la dhisay ayaa wax lagu barta masaajidka lagu dhaxdhigi jiray ma jiro iskuul ma jirto goob caafimaad ma jiro maxay ahayd biyo ma jiro musqulo inta waa dadka u baahnayeen waa sidoo sheegay dhowr boqol oo qoys degan caruur markay ugu yartahay 400 cunug waa ku nooshahay oo daawo aan gaarin 13 gaarin inta ka yar hadii waxa 13 14 gaar lagu daran waa dad aad u tiro badan caruurta haweenkaas saaka hadii aad foolato hatta farmasi oo koors oo si sameeyo hatta oo emergency u sii qabta tamalaha oo bareerada hatta malaha dadkan marka waxaan leeyahay inaan ku galo imaad aad iyo aadan runtii ugu faraxsanahay maanta in xaqiiqada ogaado deegaanka laga soo doortay waa deegaankii macnaha aan aniga ku dhashay waxaan leeyahay marka cid kasta hal noqoto dawladda federaalka wasaaradaha kala duwan waxbarashada wasaaradda caafimaadka wasaaradda biyaha ama wasaaradaha maxay ahayd ay qosayso arrimaha bulshada waxaan leeyahay horta halkan wax alla wixii degdeg oo la soo gaari kara aniga waan tiga doona xafiisyada wasaaradaha waan xamarkan ku laabta xamar waxaana matala maxay ahayd dad deegaanka Jubbaland oo dhan waxaan leeyahay marka ay horta kuwaas wasaaradahaas waxaan leeyahay inaad si degdeg ah aad uga jawaabtaan baahiyaan dowladgoboleedka Jubbaland runtii xoolaha way dadaaleen maxay ahayd wasaaradda gargaarka iyo waxyaabaha ay keeneen halkan laakiin waxaan leeyahay wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda biyaha iyo wasaaradda maxay ahayd waxbarashada ee Jubbaland idinka wax gaar ah ka waafi waa application casri ah oo si fudud uga maamulan karto adeegyada maaliyadeed sida sahal EFC Plus jeeb xawaalada taaj bangiga iyo adeegga isgaarsiinta oo ku sahlaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo wici karto waafi waxaad ku isticmaali kartaa gudaha dalka iyo daafaha dunida kala soo deg Play Store ama App Store waafi isku xiraha qurbi joogta iyo qaran joogta internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah